بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxa aan kulan kula yeelanay xarunta booliska Soomaaliyeed taliyayaasha iyo taliyayaasha hogaanada qorshaheena waxa uu ahaa in aan xog wareysi ka sameeyno qorshaha 2020ka sanadkan maadaama howlo badan ay dhici doonaan howlaha doorashooyinka iyo diyaar garowgooda iyo guud ahaan amniga magaalada Muqdisho in la qiimeeyo qorshaha ku aadan iyo sida wax looga qabanayo la iska wareysto dhacdooyinka qaarkood oo ay u badan yihiin oo miinooyin iyo waxyaabo soo noqnoqday talo laga yeesho arrintaas ku saabsanaa marka hogaanada waxaan ka dhageysanaa warbixino waxaan ku guubaabinay in laga howlgalo oo la badiyo joogitaanka booliska jidadka xogta in la qaybsado iyo in ay jirto wada shaqeyn guud oo dhexmarta ciidamada qalabka sida guud ahaan arrimahaas ayaa si wanaagsan looga hadlay waxaana muuqata in qorshe isku toosan oo wax looga bedeli karo ay meesha yaaleen marka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan amnigeeda ayada iskale sidaan hore uga hadalnay wax qabadka iyo wada shaqeyntuna waxay ku xiran yihiin sida bulshadu ay ula shaqeyso ciidamada ammaanka marka mar labaad sida waxaan kula dardaarmaynaa ciidamada ammaankuna inay shacabka saaxiib ka dhigtaan shacabka la'aantiina wax la qaban karo ma jiraan shacabkana waxaan uga baahannahay in ay ciidamada la shaqeeyaan wixii culays oo ka soo gaara oo dulqaataan mararka qaar haddii ay dhacdo si aynan habboonayn qaab wanaagsan oo aan caadifad iyo cara lahayn ay uga falceliyaan waxa loo taagan yahay waa nabadooda qof walba oo shaqo ku jirana qalad uu geli karaa laakiin qaladkaas waxaa loo baahan yahay si dulqaad uu ku jiro in looga falceliyo oo cara iyo fal aan laga fiirsan inuusan ku badan bulshada marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ciidamada amnigu iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo u taagan danihiisa iyo ammaankiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh